waxaa kaloo noo hambalyeynaya aan rabaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta ambassadorkeena Hindiya xeraalyaha guud ee qaranka xildhibaan aqalka sare muna macallimu oo bahda saxaafadda gudoomiyaha saxaafadda iyo dhammaan bahweynta kale waa idin salaamaya waa maalin farxad run ahaantii hadda waxaan ka yimid xuska 22 Janaayo 45 guurada ka soo wareegtay maalintii aasaaska af Soomaaliga oo lagu xusayay akademiyada dhaqanka fanka afka iyo suugaanta oo dad badan runtii ka soo qayb galeen waayo dhaqanku iyo afku wuxuu ka turjumayaa jiritaankeena iyo ahaanshaheena waxa mar labaad aynu xusaynaa oo isna ku beegan door weyn ku leh maalinta suxufiyiinta ama saxaafadda Soomaaliyeed waayo suxufigu ama saxaafaduba sidaynu marar badan ka hadalno wada ogsoonnahayna waxa uu ka mid yahay afarta waaxood ee waaweyn ee dawladdu ama qaranku uu ka tirsan yahay ama ka kooban yahay waa iclaamkii waa gaadhsiintii hadday suugaan tahay hadday dhaqan tahay hadday wanaag tahay hadday wacdi tahay haddii diinteenna suubanee islaamka ay tahay haddii nabadeynta ay tahay haddii wada jirka ay tahay haddii in la soo bandhigo barnaamijyada dawladdu qabatay ee waaweyn ee muhiimka ay tahay haddii in ra'yi loo soo gudbiyo dawladda la yiraahdo halka wax laga toosiyo tahay intaba waxay noo soo gudbisa saxaafadda oo kaalinta ku jirta oo nafti hurmo ku shaqeynaysa iyadoo ay imkaaniyaadka haystaan iyo dhaqaalaha haystaan iyo resourceska ama khayraadka haystaan uu yar yahay oo waliba ayna ku nabadgelahayn oo ogtihiin oo ay beegsanayaan kooxaha nabadiidku kaalinta weyn ee muhiimka ah ayay inoogu jiraan bahweynta saxaafadda Soomaaliyeed saxaafadda qaranka Soomaaliyeed macallimu iyo bahdiisaba waxaan leeyahay nagu tashada annaguna waa idinku tashanaynaa waa isku tashanaynaa waa wada jiraynaa waa inuu wada shaqaynaynaa nafteenu isu huraynaa waa wada halgamaynaa waayo saxaafadda la'aanteed qarankuna ma jiri karo saxaafadduna nabad iyo dawlad la'aanteed ma shaqayn karto soo maaha meel aan nidaam ka jirin saxaafadda kama shaqayn karayso marka waa la isu baahan yahay waynu isku tiirsannahay saxaafadda waxa kale oo mar walba ku barbar taagannahay dhaliisha iyo soo jeedinta horukaca iyo wanaajinta iyo toosinta ku dhisan in mar walba aanu diyaar u nahay inaanu dhageysano way xorriyadda saxaafadda iyo xorriyadda fikirka iyo aqligu inuu qofku u turjumo ra'yiga uu qaba waa wixii aynu soo halganay oo dastuurkeena aasaaskiisa weeye oo waxa ummadaha adduunka oo dhammi ay ka dhiidhiyeen haddaad eegtid dagaaladii adduunka ka dhacay waaweynaa badankoodu caburin iyo nidaam kale talisnimo ku dhisan nidaam aan ogolayn qofku inuu hadlo ama fikiro ayay ka dhasheen halgamada dunida jira badankeedu taas alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta waxaynu haysanaa dastuur ku dhisan dhammaan xuquuqaha aasaasiga ee islaamka ku salaysan ee shariicadeena islaamka ogashahay xorriyadda fikirka ogol xorriyadda ra'yiga ogol xorriyadda isgaarsiinta iyo iclaamka ogol xaq qofku u leeyahay inuu aaraa cusub keeno isagoo wasiilooyinka kala duwan ee iclaamka adeegsanaya ogol waxyaabahaas oo dhammi waa waxyaabaha saldhigga u ah dastuurkeena marka waa inaynu dastuurka wada ilaalinaa dawladnimada waa ilaalinaa sidii aynu u horumarin lahayna ka shaqeynaa waa shaqo wadareed inoo wada taalla qof kasta oo Soomaaliyeed aan cid gaara mas'uul ayna ka ahayn suxufigu mas'uuliyadda koowaad uu leeyahay mas'uulka xukuumadda ama dawladda ka tirsan mas'uuliyadda koowaad leeyahay dhammaanteen golayaasheena sharci dejinta ay leeyihiin iyaguna mas'uuliyad lamid ah qofka Soomaaliyeedna mas'uul ka yahay bahweynta saxaafadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay kadaba ilaahay ha idinku simo waqti sanadkiisa nabadgelyo iyo horumar aynu dhammaanteen ku gaadhno idinkuna si nabada aad u xustaan sanad guurada labaad yani ku xigta sanadkan xuska maalinta aasaaska bahweynta saxaafadda Soomaaliyeed waa guul inoo soo wada hooyatay waa guul dhammaanteen aynu leenahay waxaan leeyahay hambalyo waqti badan qaadan mayno amin baa joogteen waan idin salaamayaa dhammaantiin gudoomiye iyo bahweynta saxaafadda hambalyo aan idin dirayaa ilaahay ha idin guuleeyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh